guddiga gaadiidka bajaajka ee gobolka Banaadir oo saxaafadda la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay muhiimadda dhinaca shaqo abuurka ay leedahay bajaajka una leedahay qoysaska Soomaaliyeed iyo culeysyada soo food saara mararka qaarkood iyo dhibaatooyinka haysta bajaajleyda. Afhayeenka guddiga gaadiidka bajaajka ee gobolka Banaadir Ibrahim Xuseen Maxamed ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka haysta bajaajka gaar ahaan kuwa lagu leeyahay canshuurta dowladda hoose ee Xamar, waxaana uu fariin u diray milkiilayaasha bajaajka lagu leeyahay canshuurta waqti ka badan sanad in ay la soo xiriiraan oo ay yimaadaan xafiiska guddiga. waxaan nahay guddiga bajaajka ee gobolka Banaadir ayaan nahay. waxaan nahay ganacsato ka keenta mootooyinka iyo kuwa gaadiidka iskale ayaan isugu jirnaa. sidaas darteed mootooyinku waa ududhexaadka gaadiidka ee gobolka Banaadir waaye oo waa gaadiidka laga isticmaalo gobolka Banaadir ayaga 90% waad dareemi kartiin marka iyadoo bacdama ay saas tahay guddigan wuxuu u aas-aasmay in loo helo nidaam mootooyinkan iyo dhalinyaradan faraha badan oo beledka sida xooliga u jooga waxaa laga maarmaan noqotay in loo helo guddi ka turjuma baahida ay qabaan iyo daruufaha dul hoganaya. sidaas darteed ayaa guddigan loo aas-aasay in muddana guddiganu shaqada uu daba joogay waana dadkii hantida keenayay iyo gaadiidleyda isugu jiraan maahin dad oo caadi oo iska yimid maahin. marka sidaas darteed anagu hadda waxaan ka haysanaa dowladda aqoonsi oo ay noo aqoonsatay in aan ku hadli karno afka mootooyinka ka codsanaynaa milkiilayaasha iskale mootooyinka oo sanad ka badan lagu leeyahay inay sida ugu dhaqsida badan uga soo xaadiraan xafiiskaas si arrimo ayaga quseeya uga wada tashano ayaga iyo guddiga annaga iyo guddigaas inaan ka tashano arrimahaas oo ay ka mid tahay lacagooyinka lagu leeyahay. arrintaas waxaa waaye maahin dhib maahin wax culaab aan wadno waxaan rabnaa inaan arrintaas wax ka qaban.